Soomaalidu waxay oran jireen markay ka hadlayaan Quraanka iyo sida loo baranayo toddoba lagu bartaabay oran jireen loox quuda qalin farweyn macallin qaari arday qaylo dheer oday u qoori oo islaan qalqaalino intaas Quraan lagu bartaabay tuulkooda way iska lahaayeen iyo wax iyaga u gaaroon muwaarid ahayn weey wuxuu dhammo wada loo kala waxaynu iska leerno maxalliyoha loox waa inuu quud yahay quud qofka baadiyaha jooga kiriga iyo quudka iyo lebiga waxa garanayee waa geed cad oo maaragtay sida xaashida u cad marka la soo jaray loox laga qoro aad buu cad yahay qalinkuna waa inuu farweyn yahay macallinkuna waa inuu qaari yahay qaari waxa uu yaqaanaa xaafidan kitaab soo qaadanay ardayguna waa inuu qaylo dheer yahay oo mid gunuunucaya ama qarsanaya aanu ahayn kunuusaya aanu kor u qaylinaya si loo maqlo wuxuu jabinaya ama akhriyayo arday qaylo dheer iyo oday u quuri og baydaa aabihiina waa inaanu bakhayl ahayn laakiin waa inuu macallinka geeliisa iyo qaalintiisa iyo arbacadiisa iyo bishiisa iyo wixii siinayo la akhriyo waxaynu wax ku bixin jirnay mar bil baa la bixinayaa marna arbaca la bixinayaa marna khatim baa la bixinayaa awri iyo saci iyo qolaba waxayso iyo islaan qalqaalino haddii hooyadiina tixabad naa'imadoo seexanaysa ilmahaasi ma soo kalahaya laakiin salaada subax ka horba waa in ilmaha soo diyaarisaa oo oogta waa bari marka halka lagu shidayo dabka waa inuu waladku taagan yahay salaada subax ka horba ay quraacdiiba qabla subax u soo samaysay intaasaa quraan lagu bartaabayna waxay noo geeyay